وصاحبتي لله وصفكيغو قالبا وسنبكيغو عادية وذا سعد مورا كسو دواada Nawaal Qurux show oo nagala socotaan Nawaal Qurux channel YouTube kayga oo idinkaga soo deeyo barnaamijyo aan u arko inay muhiim yihiin ee bulshadana xiiseeyaan daawadayaal maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay saaxiibtinimada maxay tahay saaxiibtinimada dad baa ariyusa dad baa maaragtay dhibaato ka haysata inay saaxiib fiican helaan dad baa maaragtay lagu abiyusaa barnaamijkan aanu ku falanqayn doono saaxiibtinimada iyo faa'iidadeeda waxaanu rajaynaynaa inaad ka faa'iidaan annaguna aan ka faa'iideysan waa tahay waad mahadsan tahay Nawaal saaxiibtinimadu wanaag iyo waxay leedahay xumaan waxayna ku xiran tahay qofka aad la saaxiibtid qaabka uu kula dhaqmo iyo adiga qudhaada sida aad ula dhaqantid waxaa maanta marti sharaf igu ah oo barnaamijka saaxiibtinimada ila falanqeynaya Shukri Muuse Weheliye iyo magac lagama halkeysne Shukri Sharaf iyo Xamda Xaaji October Shukri adaan ku bilaabo Shukri Muuse Weheliye saaxiibtinimada dad baa isku abiyusa dad baa maaragtay moodo qafka markuu shood badan yahay maaragtay xushmad badan yahay moodo inuu aqli lahayn oo isku dayo inay maaragtay abiyusaan oo gareeyaan dad baa maxaan ku dhahaye waxa sida questionka ay tahay sidee u haysataa maxay saaxiibtinimada ay u kala baxaan intee nooc ay u kala baxaan Shukri hadaan adiga ugu bilaabo marka Nawaal sidaan horeba uga dhawaajiyay saaxiibtinimadu way wajiye badan tahay waxa ay wajiye badan tahay mid waa qof ku daacad ah oo saaxiibka lillaahi ah midna waa qof aan fake ah saaxiib fake ah ayaan dhihi karnaa wuxuu fake u yahay fake ruuxiisa si kala baxayo dhowr waji iyo dhowr nooc ayuu kala leeyahay mid waaba mid adiga qudhaada challenge kugu la jira صح oo raba maaragtay inuu iska giijiyo oo markuu ku arko adigoo hore u socda ka xumaanaya oo raba inuu isaguna maaragtay booskaaga kala soo istaago somehow aad dareemaysid inuu challenge kugu la jiro adiga tartan inuu idinka dhex furan yahay oo kale haddana adiga waxaad u haysataa inuu saaxiibka yahay صح mid waa mid inuu dhinac xun kugu hago inuu niyadda ka jabiyo in uu maxay ahaday markaad qurux badan tahay uu الفركاجلي محاول الجدا وحن ولا الجدا هذا for example ما أنت سول بستي أو كالا أرجع أو كلا حرن أيوم مركو كأركو كان حياة هتو صاحبنا بيهاي كمان نحن وكو فرح لها قروح ذا ذو كفرح لها أردت ذا ذو كفرح لها وحلبو كفرح لها مركا وحو سمينا يا وحو اسكتيا إنه سئون كون يجبيو وحو سمينا يا مركا لبسكي أحرنيد جول رجع أحرنيد أيوم ماركتيا وحو سمينا يا إنه وحن كشيبه أيوة قروح بدن إنه سوى أديكو كون يجبيو فرحدي أتكسعتي وحكاكا نسقاميو ما نقول كركاسي صاحب ربعه صاحب كربته هو كان كل درين كاغا لا سocda adoon u sheegin la socda waxa aad dareemayso fahmi kara Soomaalidu waxay tiraahdaa nin fadhigaaga u jeeda waxay dhijireen looma sare istaago qof joogaaga u jeeda jirka qofkeena waxaan yiraahdaa nin indhahaaga arkaayo lintaada loogu madaro صح marka qofka waxa la rabaa markuu saaxiib yahay inuu qalbiga kala socdo maaha inuu indhaha iyo saaxiibaan nahay iyo afka hadal uu kala socdo maaha waa inuu qalbiga kala socdo waa inuu dareemi karo maanta markuu ku arko waxa aad adiga aad dareemayso ama feelingkaaga waa inuu la socon karo marka faraxsan tahay inuu kula farxi karo oo kula qaybsan karo farxadda markaad qushuucsan tahay ama wax ka siihiin number kugu dhagan yihiin waa inuu ku dareemi karo adigoon u dhawaaqin aragtidaada xataa uu ka dareemi karo markaad xataa call ku soo wacdo telefoon ku soo wacdo asagoon ku arkin waa kan dareemi kara hadalka aad ku hadasho iyo sidaad ugu jawaabtay iyo hadalkaaga dhawaqa ka soo baxay in wax ka siihiin inaad faraxsan tahay inaad maaragtay ay ku dhantood okay tahay waa inuu kala fahmi karaa qofka markuu saaxiib qalbiga kala socdo yahay wixii ka soo hara oo saaxiib lilaahi wixii ka soo hara waa saaxiib feega han dhihi karnaa waana wajiye badan yahay dabcan waana falanqayn doonaa mar raba inaan anigu wada qaato waa falanqayn doonaa waa googoosan doonaa bal saaxiibadeena kalena aan maaragtay fikirkooda ku soo darno meesha صح hadda marka waxaan u gudbi doonaa
xamda aan leenahay. Xamda soo dhawaaw, bal fareenka waxaad ka aaminsan tahay iyo fareenka wuxuu yahay, bal wax yar nooga taabo xamdaay. aad iyo aad u mahadsan tahay Nawaal Qurux. asxaabta meel kastoo naga daawanaysaan, marka hore waxaan rajaynayaa inaad qaybta subscribe-ta iyo like-ta iyo commentiga aad naga geejisaan, si gaar ah asxaabtayda ku xiran YouTube-kayga ama Facebook-kayga. dhammaantiin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartaan Nawaal Qurux channel-keeda, oo runtii ay barnaamijyo aad u wanaagsan oo qurux badan oo wax laga faa'iideeyo ay soo geliso. intaasi kadib saaxiibtinimada oo aynu maanta ka hadlaynay, waxaan jeclaan lahaa inaan in yar ku darsado. runtii horta anigu shakhsiyan waxaan leeyahay asxaab aad u tiro badan oo dhinac walba leh, wiilal iyo gabdho dabcan leh, maadaama dee warbaahin kasoo shaqaynayay cid walba asxaab ka yeelan kartaa. laakiin inta badan waa yar tahay inaan yeesho saaxiib khaas ah. sababtaan u yeelin waa maxay tahay? inay qaarkiin ila yaabaan baa laga yaaba, ama qaarkiin aan isku dabeecadnahay. in badan baynu aragnaa intaad saaxiib aynu aragno isku dheer oo farya faraatiya oo leh saaxiibtay, ama qofkan waa saaxiibkay naftay la qaybsada, haddana aynu aragnaa dadkii isku dhegan ama iska sheekaynaya. anigoo taa ka cararaya runtii oo ayaan waxaan is idhaahdaa, oo horta saaxiibka maxaad uga baahan tahay? asxaab waad u baahan tahay, de inagu badan asxaab baynu wanaag halkan wada joognaa, oo dadku inay wada qoslaan, waqti wada qaataan, wada farxaan, waa meesheeda. laakiin in aad qof intaad saaxiib khaas ah aad ka dhigatid oo aad aamintid, aad sirahaagii iyo arrimahaagii iyo noloshaadii oo dhan farta ka saartid, uu berri toole kaa sheekeeye, dhibaatadeeda ay leedahay. soomaalida xitaa kaa sheekeeye. marka taasaan runtii anigu yara dhibsadaayo, waan adag tahay qof saan ku saaxiibno anigoo markaas xoog uga fiirsado is idhaahda bal qofkan dabeecadiisa baro, dhaqankiisa baro, saaxiibtinimada muxuu ka aaminsan yahay. marka way yaraanaysaa runtii inaad heshid qof aad isfahantaan, oo aad maxaa la dhahay isdabeecad fahantaan, isdhaqan fahantaan. saaxiibtinimada intaas ayaan dhihi lahaa. waxaan ku dari lahaa, si aad u heshid saaxiib wanaagsan oo ku qanciya, oo aad arrimahaaga iyo danahaagaba aad kala sheekaysatid. qof kasta bini aadan uu u baahan yahay cid ula sheekaysto, cid isgarab taagtaa, cid maalinka uu u baahan yahay garab qabataa. waxaa wanaagsan in qof walba uu isagu iswanaajiyo oo uu noqdo qof wanaagsan si uu u helo saaxiib wanaagsan. laakiin haddii adigii aad tahay qof dadka ku dhegan, qof dadka xaasidaya, qof aan ogoleen qofka kale noloshiisa iyo horumarkiisa, adiguna ma helaysid qof taas oo kaleeto wanaagsan oo magaranaysaa waxa aad doonaysid aad ka heshid. marka adigu marka hore wanaagsano ayaan leeyahay. aad iyo aad mahadsantahay. okay, haddaan meesha ugu gudubna xamda, waxaan galaynaa shukri sharaf oo ayadana ka hadli doonto muhiimadda shukriyey, muhiimadda uu fareenka leeyahay. wax miyaad nooga taaban kartaa? waa idin salaamay akhyaarta ku xiran Nawaal Qurux channel, meel kastoo joogtaan. galabta anagoo asxaab fara badan talo saaxiibaan nahay, asxaabaan nahay anaga waa tahay asxaabaan nahay. marka asxaabta micno qaybo badan, ani asxaab fara badan aan soo lahaa. qaar waxaa ahayd qaybihii warbaahinta aan la soo shaqeeyay Muqdisho, qaar ciyaalkii isla soo korsanay, qaar aan diris ahayd, ehelkayga naftirkooda qaar baan saaxiib kala ahayo isu kayn baxda oo sheekada iswacnaa oo saaxiib nahay. marka saaxiibtinimadu way micno badisay, way wajiyo badisay, waxay noqotay midi laba af leh. runtii saas darteed aniga naftirkayga xoogaa waan gaagaabsadaa, waana ka baqaa, laakiin waana bulsho badanahay. saaxiibtinimada waan jecelahay. marar badan oo la iqaqaniin way jirtaa, haddana ma rabo inaan sheego. waa laga qurux badan yahay wax dhacay oo lasoo dhaafay in laga sheekeeyo. marka saaxiibka waxaa la yiri mahmaa waxaa jirto cajiib ah. Soomaalidu waxaa la yiri been way sheegtaa, laakiin been kuma mahmahdo. saaxiibka kumana cadeeyo, kumana madoobeeyo, siduu yuhu ka dhigaa. marka saaxiibka hadduu yahay saaxiib oo xaalkiisa Ilaahay og yahay, adiguna sidaasaad noqonaysaa ama ku dambeynaysaa. marka waxaa quruxda badan qofka markuu kula saaxiibo sirihiisa kuu sheegto, berri way dhici kartaa inaad isqaniintaan oo isfahmi weysaan oo kala gaabsataan sababo jiro iyo duruufo jiro aawadood. marka dad waxaa la arkay dhaha ilaa gurigii ka soo bax, adiga maadaama xaas tahay, reer leedahay, caruur leedahay, waa inaad odagii kala manaaqashootaa oo kusoo fasaxaa. waa sida sharciga qabo, ma ogta diinteena islaamka ah. balse hadduu odagii ku yiraahdo ma bixaysid, arrin uu ku dan sheegto, saaxiibada aad soo wacdo tiraaho ma soo bixi karo,
naatiima soo bixi karto odageediiba joojiyey hadhowtina lagugu dhaleeceeyo runtii ma aha wax fiican waana wax naga dhex dhaca dhammaanteen haddii aan qaldamayna raalli ha la ahaado balse ra'yigayga saaxiibtinimada ku aadan waxaan dhihi lahaa qofka aad la saaxiibaysaan xamdi ra'yigeeda ayaan biirinaya ha laga fiirsado shugrina siday sheegtana waxay tiri way micno badan tahay wayna qaybo badan tahay saaxiibtinimo oo waxaa jirta oo killer ah oo khatar ah oo hadhowtii markay xumaatana cadowtinimo isku bedesho wanaagii iyo jacaylkiina la arko xumaan iyo xiqdi mid ka dambeeyo intaas ayaan kusoo koobahay nawaal haye bal adigana ra'yigaaga ku biiri ani hadda ra'yigayga horta waa sidee xamdi ka taabatay dadka asxaabta badan waan ahay qof walbaan saaxiib la ahay shaqadayda camal hadda markaan joogo dadka dhan saaxiibaan la wada ahay laakiin qof gooni ah oo gooni aan u leexsanayo oo best friend ama friend la dhahayo maaragtay saaxiib qaliil ah malihi marka taasna waxaan uga baqaa badanaa in qofkaas maaragtay aan iska qabsano dad waxaa jiro dadka oo maaragtay cafiska badan aniha waxaan ahay dadka oo maarkiinoo haddee dhaawac wax yar xanuun gaaro xayawaan kasoo kabsan karin marka waxaan diidayaa qofka inaan isku dhacno oo hadhowna maaragtay meel xun isla gaarno badanaa waa ka baqaa waa iska ilaaliyaa dadka dhan waa saaxiibaan la wada ahay qofka dhammaan jid ugu hor imaado soomaalina waxaan jeclaa inaan saaxiib la noqdo qofka taleefanadana waan jeclaa inaan gurbsado waa ka qaadaa dadka inaan nicminaa macquul ah laakiin waxaan jeclahaa taleefanada dhan gurbsada dadka soo muwacdid waxaa mashquula iska ahay oo ay shaqaysaa dhahay laakiin dadka waan jeclaa inaan xiriiriyo mashquulkana wuu kaa galo maxaa ragtay daawadeedna waxaa laga inaan usoo wici waayo badanaana qof close ma ku noqdo waxaan ka baqaa qofkaas inaan maaragtay isku dhacno oo hadhowna aan maaragtay meel xun kala gaarno qalbi xumo iyo waxna kala dhacno marka waan ka baqaa laakiin aniga saan qabo fareenada aaday dadka saaxiibtinimada way fiican tahay khaasatan dadka qurbaha ku nool maxaa yeelay xanuuno badan baa jira qofka hadduu guri isku soo xiro uu lonely noqdo qofka la sheekaysto dad Soomaaliya markaa joognay darisaa jiray qofle guriga soo galay kula sheekaysta ma weyneyn dadka waa saasa la soo dhaxsoodaa shan qof baa guriga iska joogtaan qaraaba sheekada way waxaysneed aan xoogaa ka qabtay nawaalay sidoo kale ma la arki jirin qof guriga isku xiraaya qof kali noqonayo is ururinaayo balse qurbaha waxaa loogu yimid qof raba inuu kaligiis ahaado qof is ururinaayo telefoonkii diidaayo maxaa la yiraahdaa saaxiibada ignore gareynayo qurbaha waxaad leedahay nidaamkaas wax qurbaha ku badan miyaa mise wax dalkii gaaray wallaahi nidaamkaas waa qurbaha loogu yimaaday wax qof guri isku soo xiraayo oo dadkii hadalkooda diidaayo dadka gabdhihii qurbaha jooganaya wallaahi xanuuno badan depression anxiety waxyaabo badana la soo galboonaaday marka haddii oo fareen samaysanaysid waxaa fiican inaad ka fiirsatay xamda sheegtay fareen fiican samaysa laakiin fareen la-aan in la ahaado ani ahaan waa kasoo horjeeda in dad lala socdo la sheekaysto lagaa warqabo wanaagsan ilmaan leenahay problemaan qabsan karo qofaa la sheekaysatid ku nafisid oo upload cadaankaan dhahaa oo ku samaysid hadda annagoo kale sidaan isku soo raacnay la soo baxo banaanka loo soo baxa la soo sheekaysto marka fareenka kala ah fareen waxaa jiro qof isfahmaysiin oo iskuulka ilmihii aad isku barateen fareenaad tihiin waa wada sheekaysan ilmihii iska wareysanaysiin qof waxaa jiro si kala shaqo isku barateen shaqadii iska wareysanaysiin waxyaasadeen fareenyadu waa sii kala yihiin ani kuleyba fareenka la samaysto kasoo waa raacsanahay marka waxaan u gudbaynaa shukriya ugu gudbaynaa oo iyadana noo sii taalo الله إله والله goosanay ka dhacday waa la goostay franka waana laga sheegtay xaqiiqatan waxa laga sheegayna wax ka jiraan waaye laakiin waxa la rabaa wali ma aragteen gabdho su'aalan rabaa naftirkeyga aan qabaa inaan idin weydiin rabaa qofkii ka jawaabi kara qof walba ra'yigiisa waa ka dhiiban karaa wali ma aragtay qof aad friend tihiin oo adiga aad friendnimo u haysato oo saaxiib kula ah laakiin isaga dhinaciisa raba saaxiibtinimadiisa inuu adiga kugu isticmaalo kugu use gareeyo ayna ka ahayn daacad
oo rabo saaxiibtinimadii aad u haysay oo saaxiib aad la ahayd ayuu rabaa inuu isagu danihiisa khaaska ah ku isticmaalo maalinta aad ka soo horjeesato anaba bilaabaya horta adigu waa dhamaystiri doontaa maalinta aad ka soo horjeesato aad aragto inuu qofku kugu socdo oo aad tiraahdo bal waxaas ma yeeli karaa adoo maalmo badan uu kugu dul socday oo aad islahayd saaxiibka qalbigiisa ilaali saaxiibada qalbigeeda ilaali yaanay cuqdad kaa qaadin wax aan tabarta ahayn wax aadan samayn karin wax aadan heli karin aad maxay ahayd qofka dartiis u samaynaysay ayaa waxa laga yaabaa maalinta dambe siduu ku use garaynayo markaad hal maalin kelmad ka keento oo tiraahdo war waxaan ma awoodo ama ma yeeli karo ama iga daa maanta ayaa laga yaabaa inuu bismillaahi raxmaani raxiim sida inaad cirka soo dumisay uu dhinaca kale markiiba istaago uu yiraahdo waxaan dhimatay naga daa qofkii kusoo hadal qaada xataa uu caydaada iyo hadalkaaga iyo waxaa uu u sheego mar isla markiiba uu saaxiibka ahaa isla markii wuxuu dhinaca kale saydka kale istaagay muxuu noqday cadowgaaga koowaad maxay ku dhacday haddaanu ku use garaynin adiga ku isticmaalaynin qofkaani uu saaxiibtinimada darteed kugu isticmaalaynin macnaheedu waxa waaye maba rababa saaxiibtinimada ma la dhihi karaa qofkaas saaxiib mise waa qof dana gaara wata والله أنا أهان وحنا إنسانة هاي قفكاسي إن أودن قاسك وتي وصاحب تنمى الإسلام كتاب لله كأهل كو إلى لنين قفك والهاي كرا ماركتي جويس ولي كراني وحس مكبح قفكنا كنت حق لسدنا وهذا بارت أطهى مهم تاني وهذا كل ريح محوس رمي ضد وحا أركيسا قرباك وأركيسا gabadha markay arkaan inay ma aragtay qof oo tahay baahan u baahan sheeko u baahan in la wehel u baahan looniga markuu qofka ka bato badana kelinimada ay badato saasay noqonay marka qofka wuxuu noqonaa inuu baahi qabo dad markay arkaan qofkaas inuu baahi qabo bay waxay isticmaalayaan ma aragtay abuse inuu saaxiibtinimada baahi lagu abuse oo qof la sheekaystir rabo markay arkaan bay xirba inay isticmaalaan qofka isticmaalaan meel program u soo dejina xaleenahay caaw meesha la aadaya hay daad ku soo bixi hadaba hadda dambe lagu ma soo sheegay hadaadan jaakaysnaan bas waa jaakeen lagu soo sheegi baa laga laabtay qofku waa jaakeysana ciyalkiisi dunidiisa soo dayaa subxaanallah marka frankas amal ka war dadkii rabeen u jaakeeday u atooreeyo dhahaye soo bax gabadhii ninkeeda waxa laga yaabaa inuusan maanta ilmihii ka reebi karin oo ready u ahaan mashquul قفكاس محلي هبلا ما سو بيحكي كرتون magac waa meel ku yaal dambe lagu soo sheegay waa inta already ragaataal ragaato hay shugri adiga waxa ku daraysaa runtii waxyaabaha naga dhaxdhacay kamid tahay saaxiibtaas marka cover waxay wadataa oo waxa la yiraahdaa saaxiibtinimo ah laakiin saaxiibtinimadii ayaa lagu abuse karanay abuse ka la sheego ma ah rag iyo dumarka dhexdooda isku geystay ee dumarka dhexdooda ama gabdhaha dhexdooda waa mid dhexdooda ka dhaca isku geystaan markii aad ku fahantid oo aad rabtid inaad banaanka joogsatidna هذا وديار جروب دجال قبول دجال كيف فلسطين دجال كي عبت هذا بنانك اللي فينا أيه حمد إنك صاحبتني ماذا خالص كأحمر كهرباء أدب وجدكتي هدنا بالمحط أركب رأي جاس شكرا هذه أدب ما سنت هاي إن صاحب كونا سمعته وكان نفي مال بقولها نعم كاس إنه كنت ويرت يصير له هلو مركا ما كان يرت هاي قبل يرت هاي أما أول يرت اليرات هاي وأنا كل حريدين عرور يا حاس يدك أنا كل حريدين إذا أنت أصحاب ولا نوع قصاد أنت أصحاب ودي أنا كتر لكن مركا حاس نقطين مسؤولية دنيا وخسارة إن هؤلاء بدن بعد هاي عرور بكل حريدة حاس بكل حريدة أما حاج بكل حريدة إن كان سياسي هرم معهن إن وحول اللي بويس بدينا محقق بحذي نلال هراء وعصوك عشان نلال العسول نلال شهرات قصة بحذي حتى لك عبر شو قيدو إن عيب بدنا الله ده هاي بناك وبحث ميسو لكن مركز عاد حاس نقطي تجاه وحياة بدن سميه حمر وجوري غير كذا كده حشرة markaad saaxiibta la wadaagtid ama saaxiibka la wadaagtid in uu ka shaqeeyo oo sidaas ay sirihii qoyskaaga ay ku sii faafaan oo dadku ku sii gaaraan marka anigu waxaan soo jeedin lahaa mar hadii nolosha hore dhalinyarada marka aad joogtid saadadid saaxiib yeelo laakiin marka nolosha ka soo baxday waxaad la saaxiibtaa xaaskaaga ama waxaad la saaxiibtaa xaajigaaga hadaad wiil tahay xaaskaaga la saaxiibaysaa hadaad gabar tahayna xaajigaaga la saaxiibaysaa waayo ma jiro cid kaaga dhow
oo aad la saaxiibi lahayd asxaab kale waad yeelan kartaa dee baashaa lagu bixi kartaa magaalada waad tegi kartaa sidaad doontid laakiin qofka aad sirahaaga khaaska ah nolosha kala sheekaysanaysid ha noqdo qofka aad nolosha wadaagtaan walaasha hooyada ehelka qofka kuugu dhow laakiin arrimahaaga ku gaarka ah weligaa ee dadka kala sheekaysanin ma jiro saaxiib complete ah oo weliba Soomaali markaan nahay dadka kale saaxiibtinimada xoog bay u qadariyaan laakiin Soomaali markaan aynu nahay runtii aad bay saaxiibtinimada ugu leedahay waxa laga yaabaa maanta inaan dan qof aan saaxiib nahay aan u waayo waranto arrimahayga aan uga waranto inaan berito qof kale uga sheekeeyo Allah hadaa xitaa aan xumo kaliba ka sheeginaado wallahi bilaay way dhibanaydo ninkii baa saa ku sameeyay aan idhaahdo anigoo markaa isle war ma sheegin laakiin waxaan waa war qof baan arrimihiisa ka hadlaya waa sax markaa waxaan lahaa anigoo ku soo goobaya marka horeba asxaab samayso laakiin saaxiibka khaaska ah waa inuu noqdo qof aad soo xulatay oo kuu noqday walaasha ama walaalka ama xaajiga booskaas kale oo kuu taagan laakiin saaxiib baan nolosha baan isbaranayo maanta aanu arrimahayaga kala dhameysanayo ilaa aan uga sheekeynaya anigu waan kasoo horjeedaa aad baan salaam mahadsantihiin aad iyo aad gabagabadii nawaad waa barnaamijkii waa ku fogaanay waxaan rabnaa inaan soo gabagabayno oon dhahno marka faa'iidadii haddaan kasii hadalno oo fareenka leeyahay saaxiibtinimada ay leedahay waxaan leenahay waxaan kusoo gabagabeynayaa Shukri Muuse ayadaa maxaan ku dhahaye experience ka nooga badan saaxiibnimada ha islaantana cid ugu weyn bal aniga hal igu soo aadiyay waxaan ku iri horta aad iyo aad u mahadsantiin barnaamijkan waxaan umaleynaa inuu nala fogaaday marka ka bacdi aan iska soo gabagabeyn doono horta hadalkii ay Xamda Xaaji October walaashay qaali ay ka dhawaajisay wax weyn ayaa ka sax ah waayo mar haddii waxyaabihii adiga khaaska ku ahaa privacy-gaaga uu banaanka yimaado oo qof kale ku aaminto la isku muqdo qofkaas waxa laga yaabaa inuu saaxiib feegayahay waxa laga yaabaa maanta hadda isqaniintaan ama wax yar iska keen dhaafaan inuu wax allaale iyo wuxuu ka hayo alif ilaa ya oo isdaba dhigaa laga yaabaa waa runteed waa ku raacsanahay inaadan qofna calooshaada u soo bandhigin aadan isku hubin waa wax jira waaye waxa hadda ugu badan khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed haysta oo meelaha la isugu caacayo especially social media aad aragtay in wax uun qofba uu wuxuu rabo meeshan afkayga furan uu u hadlaayo waxa ugu badan qof wixiisi asaga khaaska u ahaa dad la wadaagay oo wax badan laga og yahay waxaan u qarsoonayn oo hadhow weyto maxay ahayd wixii asaga laga ogaaday cay looga dhigo oo meel kasta la soo fadhiistay qofka adiga hooyadaana ma dhalin aabahana ma dhalin wax gooniin isuma tihiin waxba ku ceeb qarin maayo mar haddii wax yar iska keen dhaafaan taasi waa wax meesha ku jira dhanka kale aniga waxaan qabaa oo aan Xamda aan maxay ahayd ku ayidaya wixii ay ka dhawaajisay intaad saaxiib khaas yeelan lahayd asxaab samayso waayo farqi baa u dhaxeeya asxaabta iyo saaxiibka asxaab aad isla jaan qaadi kartaan meel isla tagi kartaan isla soo shaahi kartaan waqti isla qaadan kartaan boorinka isla soo tuuri kartaan laakiin waxyaabaha privacy-ga ah ay idin kala xiran yihiin inaad samaysata ayaa ka wanaagsan qofaad noloshaada dhan u dhiibto hal maalin bamba ku qarxin kara intaad maxay ahayd aad samaysan lahayd inkastoo saaxiibka dhabta ah oo qalbiga kaala socda sometimes uu ka fiican yahay qofka kula dhashay oo ay dhinaca kalena leedahay saaxiibtinimada markay dhab tahay wanaag ay leedahay oo jiraan dadaan maalinna kala hadlin dad kuwa hooyada ay aabaha dhaleen ay kaaga fiican oo sida aan anagu dhahno reer koonfurkeena waxaan dhahnaa dhalashada waxaa ka wanaagsan reer wadaagta sababtaas waxaa jira dad badan oo wanaagsan aad wanaagsan runtii oo aan ahayn inaan duudsino oo maxay ahaday saaxiibtinimadan aad u qiimeeyo una qadariya iyagana meesha kama saarayno waa ku jiraan laakiin waxa soo batay badda dhan maxay dhaheen reer xamar hal malaaya qurmiyo ma dhihino waxa soo batay saaxiibada feega oo hadhow afaarahaaga internalka ah iyo wixii adiga ku khaaska ah hadhow banaanka inta soo dhigo wax shaaca kaaga dhigaayo sidaas daraadeed waxa waaye waxa fiican marka horeba halees aamino waxa ka fiican yaan lees aaminin waan mahadsantahay barnaamijkii maanta intaasaan kusoo gabagabaynaynaa asxaabay intii aan hawada ku wada kulmi doono waxayna kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo